سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضة وضيال سو دواذا برنامج كيني فلنقينتا إيو قضبضي المنسوق قادم دنوحا كميدا. دولة إيتوبيا أو قرشينيسا إن أي هيرجليسو هشيسكي إس أفكارات نحمري إيو سوماليلان. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo safar degdeg ah ugu baxay ciidamadii jabka weyn u geystay al-shabaab gobolka Jubbada Hoose. Qodobada iyo qodobo kale ayaynu falanqeyn doonaa daawadayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. daawada haddii aad tahay markii kuugu horeysay ee aad noo soo booqato waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelkeena. halkan waxaanu ku soo gudbina barnaamijyo falanqeyna iyo siyaasadda Soomaaliya iyo arrimo kale oo waaweyn. daawada waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto waayo dhiirigelinaya inaga noo tahay. barnaamijkeena ayaynu gudagali doonaa daawadayaal falanqeynta maanta. ku soo dhawaada daawadayaal. dowladda dalka Djibouti iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo walaac weyn ka qaba heshiiskii afkarad ee dhexmaray Somaliland iyo dowladda Ethiopia kaas oo ahaa inay Ethiopia ka codsatay Somaliland 30 kilomitir oo dhinaca badda saldhig military halka Somaliland beddelkeeda ay helayso aqoonsi inay siiso Ethiopia. haddaba walaac weyn ayuu ku abuuray arrinkaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud sida ay xoguhu sheegayaan. haddaba dowladda Ethiopia ayaa waxa ay qorsheynaysaa sida wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in 30 bisha July ee ay maalmaha kooban ka harsan yihiin in ay ansixin doonto oo heshiis rasmi ah u bedeli doonto heshiiskii afkarad ee Somaliland iyo Ethiopia u dhaxeeyay. haddaba 6 bilood oo dagaal siyaasadeed iyo isxagxagasho badan oo ka jiray siyaasadda Soomaaliya iyo Djibouti maadaama oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud cuntami weyday arrintan Ethiopia ay ku dhaqaaqday. haddaba xogaha la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xiriirka u jaray safiiradii iyo diblomaasiyiintii dowladda Ethiopia u joogay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Garowe iyo Somaliland kaas oo kaga dalbaday in ay si degdeg ah uga baxaan dalkooda. qodobka xiga aynu barnaamijkeena ku soo qaadan doono maanta daawadayaal sida aynu wada ogsoonayn muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Jubaland ayaa waxay dagaal adag kula jirtay kooxaha al-shabaab. haddaba jabkii weynaa ay u geysatay ciidamada daraawiishta Jubaland ay u geysteen kooxahan al-shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu safar degdeg ah ku aaday deegaanadii laga xoreeyay al-shabaab gaar ahaan deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo si dhiirigelin ah iyo mahadcelin si uu ugu sameeyo ciidamada Jubaland ee halka guulaha kaga gaaray al-shabaab. madaxweynaha Jubaland oo bil ka hor ugu tagay deegaanada Buulaxaaji iyo ciidamada Jubaland waxa uu ballan qaaday in mudnaanta gaar ah ay siin doonaan ciidamada iyo kuwa hawlgallada ku jiraba sidoo kalena lagu abaal marin doono guulaha ay soo gaareen ama ay soo hooyaan ay ka gaaraan cadawga. goob walba ay ciidamada tagaana uu isagu ugu tagi doono uu booqan doono garab istaagna uu muujin doono daawadayaal. haddaba gaar ahaan jabka weyn maalinta dhaweyd u geystay al-shabaab guutada gaar ahaan Birjeex ee daraawiishta Jubaland ayaan xusuusaha al-shabaab ka